madax dhaqameedka iyo waxgaradka degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa maanta xoolo isugu jira geel iyo ari loogu talagalay munaasabada caleemasaarka madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dawladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ku wareejiyay gudida qabanqaabada munaasabadaasi waxaana halkaasi ka hadlay Chief Caaqil Maxamuud Askar iyo aqoon-yahan Axmed Maxamed Xasan Qaal oo sheegay inay xoolahan ka keeneen degmada Xudun ee gobolka Sool uguna talagaleen inay kaga qayb qaataan munaasabada caleemasaarka madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dawladda Puntland iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadalladoodii ka mid ahaa halka waxa isugu yimi koox ka timid degmada Xudun oo ka kooban odayaal iyo waayeel waxgarada iyo dhalinyaro oo u yimi Garowe ilaa shalay si ay uga qayb qaataan xafladda caleemasaarka madaxweyne ku-xigeenka cusub ee la doortay mudane Axmed Cilmi Cismaan oo u dhashay gobolka Sool gaar ahaan degmada Xudun waxaanu rabnaa oo u nimi Garowe annagoo wadna geel 16 iyo ari 54 oo ay degmadu ugu tala gashay inay kaga qayb qaadato hambalyada iyo farxadda u soo heeyatay mudane Axmed Cilmi Cismaan ee uu ku guuleystay xilka madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland xoolahaas insha Allah biidhnillaahi tacaala kuma koobna intan degmo kasta tuulo kasta iyo degmadii Xudun qaybaanu ku reebnay loogu talagalay in xaggaana aanu fantasiya ka samayno sida uu sheegay Axmed waxa aan hambalyeynayna marka ugu horeysa madaxda cusub ee loo doortay maamulka Puntland madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Cilmi Cismaan xoolahana sida uu sheegay waxay ka soo jeedaan degmada Xudun waxaana loogu talagalay dabaaldega Axmed Cilmi Cismaan Puntland wax looga yaqaanaa geesiga reer Xudun oo idinkuna ogaada magaca loo yaqaanay ku caanbaxay ee loogu walqalay waa geesigii Puntland dabaaldeg iyo soo dhaweyn fiican baa ka dhacay aad iyo aad baa loogu farxay ilaahayna waxaan ka baryayaa in uu la garab galo inta hadhay ee la tabayo ururinta Puntland iyo habacsanaanta ka muuqata inay ka saaraan Axmed Cilmi Cismaan waa ognahay waxa uu soo guntaday hawsha mudanayaasha iyo madaxweynuhuba waxaanu rajaynaynaa inay la garab galaan hankayaga iyo himiladayada Axmed wuu og yahay wixii aanu tabaynana wuu og yahay madaxweynahana waxaanu ka rajaynaynaa inuu saa isna u ogaado oo guntiga diisha iskaga dhigo ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay ayaanle Faarax Cali Shire oo ka mid ah howlwadeennada madaxweyne ku-xigeenka oo cuqaasha iyo waxgaradka degmada Xudun ee gobolka Sool uga mahad celiyay xoolahan ay kala wareegeen waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa Caaqil Askar iyo kooxdiisa odayaal dhaqameedka ee reer Xudun gartay maanta maxaan ku raadayay in ay si heer sare uga qayb qaataan dabaaldega iyo ducada ama hambalyadaba guud ahaan aynu nidhaahne madaxweyne ku-xigeenka cusub ee Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo ay soo gaadhsiiyeen xoolaha nool oo isugu jira geel iyo ari runtiina maxaan ku raadayay ay mudan yihiin xusid gaar ah iyadoo reer Sool ay guud ahaanba aad ugu farxeen magacaabista maxaan ku raadayay madaxweyne ku-xigeenka misana si gaar ah ayaan uga mahad celinaynaa mar labaad iyo saddexaad reer Xudun oo soo gaadhsiiyey madaxweyne ku-xigeenka xoolaha nool aad iyo aad baad u mahadsantihiin